madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo muddooyinkan safar shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa gilinkii dambe maanta ku soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. madaxweynaha iyo xubnaha la socday waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay ku-xigeenkiisa guddoonka baarlamaanka wasiiro xildhibaano ka tirsan Hirshabelle maamulka gobolka kan degmada Jowhar odayaal ururka haweenka iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada kuwaas oo madaxweynaha ku sugayay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. soo dhaweyn kadib madaxweynaha ayaa loo soo galbiyay magaalada Jowhar waxa uuna durba kormeer ku tagay xarumo cusub oo loo dhisayo wasiiro ka tirsan maamulkan Hirshabelle. madaxweynaha ayaa u koorgalay sida uu ku socdo dhismaha xarumaha loogu talagalay inay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah wasiirada cusub ee uu dhawaan magacaabay. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Hirshabelle Engineer Jama Ahmed oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa madaxweynaha uga warbixiyay ilaa hadda waxa ka qabsoomay dhismaha iyo waxa uu dhiman. dhismihiina waa sidaad u jeedo meel fiican buu marayaa hase yeeshee maxay ahayday weli ma gaarin ilaa 50%. mashruucan waxa dhismahan hadda aan joogno waxa lahaa wakaaladii biyaha waa degaankii madaxda wakaaladda biyaha ee gobolka Shabeellaha Dhexe waqtigii dawladii hore 27 sano sidaad adigu la socoto waxa gacanta ku hayay qoys Soomaaliyeed oo badbaadiyay waana meelaha tirada yar ka badbaaday maxay ahayday burburkii waxaan rajaynaynaa inuu dhamaadka January dhamaado waa afar unit afar xafiis oo kala go'an marka afar wasaarood kala kuma filla laakiin hadii ay baydno intii ay deeqdo ayuunba qorshuhu yahay inaad maaragtay go'aan ka gaaro madaxda gobolka madaxda dowlad goboleedka ay go'aan ka gaarto oo sidii loo qaybsan lahaa. inta kadib madaxweynaha waxa loo galbiyay xarunta madaxtooyada Hirshabelle isagoo kulan gaar ah kula qaadanayay madaxweyne ku-xigeenka ee qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle. imaatinka madaxweynaha waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo la filayo in dhawaan golaha baarlamaanka Hirshabelle la horgeeyo wasiirada cusub ee dhawaan uu magacaabay si ay u helaan codka kalsoonida. Yusuf Abubakar Baan Telefishinka Cable Jowhar.